بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دواada daawadayaasha sharafta leh waa Dr. Saadiq Axmed Cumar oo mar kale idin leh Ramadaan Mubaarak maalin wanaagsan insha Allah taala waxaan hore uga soo hadalnay casharkeena koowaad ee habdhiska uu ka samaysan yahay dheefshiidka ama gastrointestinal tract wax loo yaqaano waxaan ka soo bilownay afka waxaan ku dhameynay meeshii maaragtay rectumka ama saxarada ku dhacayso lagu fiidinayay ayaan ku ekeenay maanta waxaan galeynaa cudurrada ku dhaca waxaan u kala saaraynaa dhowr qaybood waxaan ka bilaabaynaa إن شاء الله تعالى هدو وقت نو سامحو ونسيه مركز إن شاء الله أفكا أفكا وحيابها كدعاء وحكم ده inflammation أما عابق أي كوكا عابق أفكا كدعاء وحلو يقانا gingivitis قيبت أقوى وكدعاء عرتك وسامية عرتك قيبت جدها يوريك الكها عقار كودو دنا وحكى لو جرت مركز inflammation gas أفكا كدعاء إنه كانوا gingivitis كاس نبرة أما circular ulceration أما وريك نبرة oo afka maaragtay ka sameeya buqcad ama baro cadcad ka sameeya waxa kale oo iyadana jira markaasi chicks ku dhaca ama daamaga ku dhaca ay waxay la mid yihiin kuwa ku dhacay marka gaamka ama cirifka ku dhacay la mid yihiin iyagana waxay sameeyaan wareeg oo hadana white ama cadaan ay sameeyaan waxa soo dhan marka waa inflammation afka ku wada dhaca dhammaan waxay keenaan markaasi calaamado kala duwan oo xanuunada ugu horeeyo pain ama xanuun ay ugu horeeyo bleeding marka qaar dhiig ay keenaan oo maaragtay qofka markii uu hadal rabo ama wax xun rabo kala dhiig ay keenaan baad odor in uu sameeyo oo kala afka uu uro waayo nabarra ku wada yaala afka marka uu buka xubub cadcad ayaa saarma ilaa maaragtay faruuraha xitaa marka qaar waa ay soo gaaraan waxa kale oo ka dhashay dehydration waayo qofka afku wax ka qaadanaya haddii nabarra uu ku yeesho waxba ma cuni karo waxna ma cabi karo qofkaas waxa ku dhacay marka hadhow nafaqo darro ama dehydrated ayuu noqonayaa waxaan laga dareemayaa markaas tabardari indhihi iyo xoogoo daciifa maqalkii oo yaraada waxyaabo fara badan la dareemi doonaa haddaana laga saacidin oo maaragtay nafaqo la siinin more salivation dareer badan iyo canuuf badan ka imaanaysa afku waayo afku buka qofkii normalka ahaa canuufta ilaashinaya laqay hadday ku badato ama maaragtay limit u lahaa soo deysmada kanu ma aha waa jiran yahay kan marka waxaa dhalanaysa marka in canuuf fara badan uu soo daayo afkii oo dareero qofkii oo maaragtay maanta laga jooga dareerka laga tirtiro waxyaabahaas oo dhan ayaa dhalanayso iyo in barar yimaado afku bararo ciridku bararo daamanku bararaan afkii dhan wada bararo bug marka waxaa dhacda marka qofkii in hadhow uu sababo markaasi in qofkaasi afkaas dhan uu problemkiisii xanuunkii maaragta uu dhibaato weyn qofka ku keeno caafimaadkiisa ku keeno maxaa keena marka mouth inflammationka ama oral ulcerationka maxaa keena nabarrada afka ku dhaca maxaa keena waxaa keena laba qaybood oo ugu waaweyn qayb waa bacteriadana waxaa ugu badan oo keenta staphylococcus iyo streptococcus staff iyo strepto waxa ugu sii caansan oo keena staff ku hormariyay staff ayaa dhahay staffka aad ugu sii caansan oo keena inflammationka ama mouth ulcerationka asiga ku badan waayo afkeena waxaa jooga bacteria normal life ah oo loogu talagalay inay ilaaliso environmentiga afkeena uu ka samaysan yahay maadaama acid iyo base uu ku wada jiro afkii in maaragtay aysan dhibaato ka dhalanin oo maaragtay ilkii aysan halaabin wixii la cunaayana dheefshiidkiisa fiican ay uga faa'iidaan marka normalkaas hadhow waxay noqonaysaa in dhibaato markay la kulanto ay maaragtay isku bedesho abnormal disease ama cudur ay sababto lacerationadaas ama maxaan ku ihahdaa ulcerskaas ay ugu badan yihiin ay ka dhacaan afkii marka waxaa kaloo iyagana markii bacteria laga soo tago keeni kara waa viruska ugu badan waa herpes simplex kan ugu badan gingivitis-ka loo yaqaano isagaa keena herpes gingivitis ee dhahaan dhakhaatiirta ama qolooyinkan caafimaadka iyagana herpes gingivitis-ka ama herpes simplex viruskaas isagana waxaa waay kan ugu badan ee afka ilaa iyo faruuryaha xitaa soo gaaro xubka faruuryaha hore dhan ka dhiga kuwa inflammated ama caabuqiisu uu aad u daran yahay urka badanaa sababa haddana keena maxaan ku ihahdaa in meeshii ay bas ama maal ka dhalato waa viralka kan ugu xoogan ee afka damageka ama burburka badan u geysta labaad ee soo labaya maaragtaa bacteriada ee afka maaragtaa ku dhaca sidee marka lagu daweyn karaa haddii qofka uu qaado bacteria waxaa la siinaa antibiotic kuwa ugu caansan penicillinska ama kuwan ampicillin ama moxillinska iyo sharobooyinka la xiriira waxaa kaloo la siinaya maxaan ku ihahdaa dawooyinka loo yaqaano oral gelka ama kuwa afka lagu shubo oo badanaa maaragtay sababa in maaragtay afkii maaragtay qofkii uu healing processkiisa soo degdego oo uu aad usoo fiicnaado waxaa kaloo iyadana jirta in haddii bacteria aysan ahayn oo virus ay noqotona iyadana lagu daweeyaa dawooyinka loo yaqaano kuwa herpeska oo acetaminophenka ay ka mid tahay ama ibuprofenka xanuun baabiyihii iyo maaragtay antiviralka ka kooban iskugu jirta ama meconazolka the best medical treatment ay ku sheegaan qolooyinka caafimaadka oo viral treatment oo maxaan ku ihahdaa oral ulcerationka ama oral ulcerska ah marka daawooyinka ugu badan ee loo isticmaalo daawooyinkaasi ayaa ka mid ah
maxaa marka qofka hadhow marka haddii xanuun u jiro maadaama qofka aad afka u burburay xanuun badan uu ku hayo la siinayaa waxaa la siinayaa xanuun baabiyaha qolooyinkan anesthesia aad u isticmaalaan oo loo yaqaano benzodiazepine ayaa la siinayaa. Benzodiazepine waa maado ka kooban laba maado oo benza iyo zayn ka kooban, waana maado loogu talagalay in qofka maxaan ku yidhahdaa ka tisho xanuunka ka tisho, waa xanuun baabiye ah oo maaragta loogu talagalay inuu xoogo xanuunka ka yaraado. waxaa kaloo iyadana jirta maaragta qofka inuu hadhow loo baahan yahay inuu sameeyo cadaysi oo maaragta ka taxadarayo ciribka ka taxadarayo. sababta cadaysiga loo farayo wax kale maaha, meesha waxaa yaalo ilkaha waxaa la rabaa inay ilaaliyaan maaragta nadaafadii urkii meesha inuu ka yaraado, haddana ilkaha naftirkooda iyo naftirkooda uusan damage ku gudbin. mar haddii ciribka bukada ciribka ilkihii ay ku yaaleen waxaa u malaynaysaa in hadhow ciribka gadaal laga soo qodayo oo maaragta ilkihii banaanka la keenayo. marka dhibaato intaan ilkahana aysan gaarin waa in marka qofka tartiib hadda siduu u cadays karo u cadaysto. sidoo kalena waxaa aad soomaalida maaragta loogu baraarujinaya inay isticmaalaan biyo diirimaad leh oo wax yar cusbaa lagu daray si jeermiskaas dilitaankiisa uga qayb qaataan. insha allahu tacaala dhammaan qaybta koowaad ee mouth ulcer ama nabarada ku dhaca afka oo ka mid ah qaybta GIT-ga halkaas ayaan kusoo koobayna insha allahu tacaala. su-aalaha waxaa noo soo dhigi kartaa qaybta subscribe-ka nodhaha insha allahu tacaala, gaarsiina asxaabtiina insha allahu tacaala. soo dhawaada, maalin wanaagsan. asalaamu calaykum waraxmatullah.